خير الورى يا رفيع القدر أسمى ما سرى الله يا رفيع وضد الفضل ما داسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعنا وناكسن داود يا الهلكن وشبكة المحبين أو برتين إن يسوق بسو خيرك يدك على هاتن waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo aan uga hadli doono ziyaarada iyo xuska nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee aabihiis iyo sidoo kale hooyadiis oo si toos ah uga dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaar ahaan Mawla Amaana Xamsata Sheekh Aways Al-Qaadiri. ziyaaradan oo ahayd mid markaasi ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo isugu jira mahadixiin iyo dariiqada qaadiriyada ayaa waxa soo qaban qaabiyay Maana Xamsato Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Casir oo iyadu ku nool dalkaasi Mareykanka. gaar ahaan ziyaaradan waxa wakiil uga ahaa wiilka ay dhashay Maana Xamsato Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Casir oo lagu magacaabo Sheekh Imaadudiin oo isagu markaasi ziyaarooyinka halkan ka qabsooma si weyn maamul uga ah isla markaana uga wakiila hooyadiis oo ku sugan dalkaasi Mareykanka. ziyaarada waxa ka soo qayb galay dariiqatul qaadiriya oo ah dariiqada markaasi mawlaca iska leh maadaama Maana Xamsato Sheekh Aways Al-Qaadiri asalkeedu uu ahaa ayna ka soo jeeday dariiqada qaadiriyada. sidoo kale waxa markaasi lagu soo bandhigay halkaasi xadrooyin qaadiriya ah iyo sidoo kale salawaadka nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee. mashaayikhda iyo culimada halkaasi isugu timid ayaa sidoo kale waxay akhriyeen khidmooyin qur'aan ah iyaga oo markaasi nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee aabihiis iyo hooyadiisna khidmooyinkaas iyo dhammaanba wixii halkaasi ay ku akhriyeen u hadiyeeyay. mashaayikhda goobta isugu timid ayaa qaarkood waxay markaasi si weyn ugu dheeraadeen siirada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee iyaga oo ka sheekeeyay wacdi taabanaya siirada suubanaheena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee. وسالم أعلى سماء سماء محمد الله أعلى سماء سماء محمد أعلى سماء سماء محمد جبريل قال له تقدم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ودين أظهره محمد والكفر أبدله فهدم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد وعلى آل كلهم وصلى. هلا صل يا ربي على علي الذرى سددنا فضال من داس ثرى. الله يا حبيب الله يا خير الورى يا رفيع القدر أسمى ما سرى الله يا رفيع القدر وضد الفضل من داسا. ألا يا حبيب الله أنت اعتمادنا وأنت رجانا عند كل مروع. اللهم صل وسلم عليه. يا خيرة الرحمن يا بهجة الورى
ويا مجمع الخيرات جاهو كما شرعين تحيتي اللهم صل وسلم عليه Idi amina mata ibajihaya ibagsiaya igarbiyaya ala ogati inti amata ayat qurana ogesiyena bakal bika barkisawa وبكى بك بركيسا بريقا يا مالا أركايا بحر كيبا سيبركيسا بلم بشير كالا بحينا اسمه محمود ومدثر أحمد ممدوح بالناس صورا عبده مراد لمن ضربا يحصل المريد بلمح البصر يحصل المريد بلمح البصر ربي على خير البشر دبتم على خير البشر أحمد المحمود والآل الغرر xafladan waxay ku magacaaban tahay waa ziyaartii cabdullaahi ibnu cabdilmuطalib oo aabbaha nabi muxamed sala allahu calayhi wasalama iyo hooyadiisa aamino bintu wahab ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khalqigiisa wuxuu ka doortay in ay u noqdaan khayru khalqillaahi oo nabi muxamed sala allahu calayhi wasalama aabbiyo hooyo ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وقصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه من أبونا آدم لغصه بالله إلى يولغ كانوا نبي أبيه سا انتقال أيو كجري نبي مربع صلبي أو آبئ صلبي ولد أيو أقوراي إلا إلا إماده أبيه عبد الله كذب إلهي مركو ربادي حقيقة النبي محمد إنه موجيو جيلاني يا جيلاني سيدي أنت أمير الجيل والإنسان أما رقم له إلى نسيان سيدي جيلاني يا جيلاني يا جيلاني يا أكيد من قال سيدي جيلاني يا جيلاني يا جيلاني يا أكيد من قال أنا جيلاني سيدي أنت أمير الجيل والإنسان يا أما لكم أنا سيدي أنت بحر الأمور يا كان جان الله سيدي تواصلي بشيخنا أويسوا ولي الله هارون في sidoo kale sheekh Imaadudiin oo wakiilka markaasi ziyaaradana soo qabanqaabiyay isla markaana hooyadiisa maana xamsata sheekh maxamed sheekh cabdullaahi casir uga wakiil ahaa ayaa waxa uu mahad celiyay dhammaanba dadka kala duwan ee ka soo qayb galay oo isugu jiray mashaayikh maadixiin iyo sidoo kale qaadiyaal ka socda dariiqada qaadiriyada alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulillaah ziyaarada waynoo gashay waxaa meeshaan ku ziyaaranay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo waalidiintiisa
sidii oo shiiqadeena noo amartay kheyr allah siiyo waxa ugu wanaagsan oo dadka lagu tarbiyay karo oo quluubtana ku jilceyso waxa waaye muxabbada xabiibka sallallahu alayhi wasallam marka rasuulka jeclaatid oo wuxuu jecel yahay jeclaatid adigana albaabiyaasha oo muxabbada oo quluubta lagu fura marka ziyaaradaaniitu waxa ilaahay ka rajaynaynaa awalan ilaahay shiiqada allah noo xifdiyo oo maraykan joogto oo noo ishaartay inaan ziyaarada dhigno oo haddana nagu tarbiyaysay muxabbada xabiibka sallallahu alayhi wasallam sidii oo shiiqeena sheekh ways noogu tarbiyay awootadeen maan xamsatu noogu tarbiyaysay shiiqeena sheekh maxamed sheekh cabdullaahi casirne oo noogu tarbiyay inta meeshan ka soo qayb gashay oo ashraafta ku jiraan shayuuqda ku jireen daakiriinta naa'ibiinta kullina kheyr allah siiyo anagana ilaahay waxaa ka tuugeynaa meel kastaa joogno kuwa taqwada laazim allah nagu daro kuwa adduunyada jeceelkooda quluubta adduunka jeceelkiisa quluubtooda laga guriya allah nagu daro insha allah saa inta iskugu imaanay xoodka rasuulka sallallahu alayhi wasallam allah naska keeno allahumma salli ala sayidina muhammadin guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warbixintii koobneed oo aanu ka diyaarinay xuska iyo ziyaarada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo gurgiisa ahaatee aabihiis iyo hooyadiis oo si toosa uga dhacday mawlac amaane xamsate sheekh aways alqaadiri oo ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir intaanu warbixinta lamid aynu ku kulmi doonno saaxiibayaal daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo